mudane madaxweyne himiiliyo karsaad muujiso dowlad mudane madaxweyne himiiliyo karsaad muujiso dowlad magacweyne amlagu qaboobiyo halyey meel maraatay soo baxnay banaanbax nabadeed waxaanu taageersanahay dowladayada iyo qarankayaga Soomaaliyeed ma ogolin burbur iyo dib u celin waxaanu doonaynaa horumar waxaanu doonaynaa nabad waxaanu doonaynaa nolol mar rabno yacni ma arkay wixii dalkayaga iyo dadkayaga burburinaya waxaanu doonaynaa dadweynaha ku muujinaynaa waanu doonaynaa dadka cadawga ee doonaya dalkayaga burburiyaan oo dib loo gumaystaan yeeli mayno diiday ma yeelayno waanu dadkama soo horjeedna waxaanu taageersanahay madaxweyne farmaajo الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore magaca baan ku bilaabayaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu isugu soo banaanbaxnay banaanbax nabdeed waxaanu taageeraynaa dawladda federaalka ah ee farmaajo guul baanu leenahay waa aniga oo gudoomiyihii Mustafa Cabdalla ah waxaanu joognaa magaalada Xaabo gobolka Gardafuul gaar ahaan degmadiisa Xaabo waxaanu intaas isugu keentay oo shucuurtayada u muujinaynaa oo soo banaanbaxnay madaxweynaheena qaaliga ah Farmaajo waxaan leenahay Farmaajo guuleyso cadawga Allah ka qabto dabadilifka Allah ka qabto qabiil ma rabno 90kii in lagu noqdo ma rabno dadba wixii ku diimay 90kii lagu noqdo ma doonayno 90kii lagu noqdo burbur ma rabno waxbarasho rabnaa ardaydu waxay rabtaa wixii waxbarasho rabaan iftiin bay rabaan nolol baan rabnaa haddaan indhaha kala qaadnay ma doonayno 90kii in lagu noqdo guul baanu leenahay Farmaajo maxaad ugu rajaysan guul Farmaajo maxaad leedahay guul Farmaajo guul waxaan insha Allah codka u dirayaa madaxweynaha aan u riyaaqayno gobolka Gardafuul ugu taageerayno inaanu weligiis gobolka Gardafuul iman inaana hadii la wax ku riyaay macaawinadiisa iyo aqoontiisa iyo waxtarkiisa ayna soo gaarin dadka xamar la dhisay oo loo nuuriyay baa xamar burburinaya waxaanu leenahay dadka xamar burburinayo waa muraayadii caasimadii Soomaaliya weeye anaga burburinina Farmaajo guul baanu leenahay Farmaajo horumar baan leenahay macaaradka Allah ka qabto waxaabo kacsan maantay waa isbiir baa muujinaynaa guul Farmaajo guul hadda jirto oo Soomaaliya waqtigeedii ka dhamaada taageeradeeda oo aanu taageero u nahay inay soo noqoto mar labaad iyo mar saddexaad kuma jecelin jecelaysi nagama aha waxa ay naga tahay daacad ilaahigay waxqabadka xukuumaddu ay ku talaabsatay sanadihii la soo dhaafay wadaanu shucuubta Soomaaliya nahay waxaanu dareemaynaa in horumar la gaaray in horumar lagu talaabsaday in Soomaaliya ay u dhaqaaqday cagta saadhay wadada runta ah oo shacabka dareenkiisa ka turjumaysay waxaan mar nagama hadaanu shucuubta Soomaaliya oo shacabka nahay waxaan muddo badan raadinaynay 30 sano waxaanu raadinaynay inaanu mar uun aragno dawlad dadnimo leh oo karti leh oo haldoor leh oo midnimo leh oo ummadda Soomaaliya baadi goobta oo dalka Soomaaliya bad iyo berri cirigeedu baadi goobta intaasaan raadinaynay 30 sano ayaanu raadinaynay waxay ku guuleysatay inay wiilasha Soomaaliyeed oo kala hadfay soo ururso inay xabsiyada ka soo saarto inay xuduudihii oo sidii la doono loo banaysan jiray inay difaacdo inay badihii la kaluumaysan jiray ay xaqiiqadeeda xuduudkii soo raadiso inay ummad oo dhan isla doonto muhiimadda taageerada iyadu waxay wajahan tahay waa intaa wax siin dawladda hadda ahi gaar ahaan Puntland gaar ahaan Gardafuul xaqiiqatan wax naga soo gaaray ma jiraanin oo aan ahayn hooska la harsanayo iyo gobonimada ummadda Soomaaliyeed ay wada huwan tahay taas taageerano
taasaanu danaynaynaa waxaan ka turjumaynaa annin jeclaysnaga ma aha xaqiiqatan waxaan raadinaynaa haldoor kasta iyo tiim kasta oo hogaamintiisu sidaa noqoto ayaan taageero u nahay waxaan leenahay waxaanu taageeraynaa hadafka ay ka qaadatay gacmaha shisheeye iyo sida ay xuduudaha u xidhay iyo siday go'aamada masiiriga oo shacabka matalaadeeda uga turjumaysaanu wax diyaar u nahay maasha allah waxaan leenahay cid kasta oo 30 sano waddankaasay doonto ugu kartifalaysay ama ha ahaadeen maamul goboleedyo ama cid kale oo si kale u hanqaltaagta ha ahaadeen maanta waxaanu shacabka ka midaysannahay waddada saxda ah oo cadaaladda ah oo cagta la saaray inaan dib looga noqon in hore loo socdo waxaanu maanta wax xaqiiqda dareenka shacabka isku mid baan ka nahay dareenka shacabka isku mid baan ka nahay farmaajo khaasatan waxaanu leenahay haliyey waxa xaqiiqo waxa tahay haliyey ummadda Soomaaliyeed hore u wada waxa kale oo hore inta kale oo kula socoto xukuumaddaada hadda qayb ka ah xaqiiqatan wax badan baa haldoorka ah oo muhiima oo ra'yigooda iyo ra'yiga iyagu isku mid ka yahay waxaanu cambaaraynaynaa kuwii firiimbiga yeerinayay oo markii madaxweynuhu khuldaynayay firiimbiga ku jeerinayay oo caaga guduudan afka ku haystay kuwaasaanu aad uga xunnahay idinma doonayno waa ka xunnahay waa idin maqallay idin aragnay idinma aaminsanin idinkuma kalsooni dawladdaanu ku kalsoonanahay iyo inta afkaarta la wadaagta ha noolaato hadlayo afka shacabka reer Gaardafuu iyo shucuurtooda aan ku soo koobi karna haraka degaankana uga galay xaalad badan uga kuurgalid taageerada farmaajo ma garat waxaan taageersanahay farmaajo cid allaaliyo cid ka hortimaadana waa cid waxaan u aragnaa waddanka burburis ku wada qaran dubisna ugu wada indhahana qabanaysa dadku mudday soo halgameen soo rafaadeen soo dhibaatoodeen waxaan leenahay farmaajo ha guulayso waxaan u sheegaynaa dadka mucaaradka ama kula jira gacmaha sheeyaha ama ku faragelinta kula jira inay Soomaaliya burburiyaan waxa ogaataa inay hadda ciidanka Soomaaliya iska qabanayeen farmaajo iska qabanayeen ee dadka u socotaan shacabka oo maatada oo aan rabtaan inay sitaan inay iska qaban doonaan gacan birayna iska qabanay dadka shacabka nin allaaliyo nin walba ku xisaabtamo inuu dadka masaakiinta oo Soomaaliyeed oo dhibaatada iyo burburka iyo rafaadka sodonka sano ku soo jiray oo maanta iftiin ku baxay oo loo soo ceshay xabahoodii loo soo ceshay dagaalkoodii loo soo ceshay dadka eerina in ay ka leexdaan dawladda Soomaaliya dadkooda iyo dareenkooda iyo caafimaadkooda ku jira haday ka danaysan oo caafimaadkooda fiirin shacabka iyada dawladda gaar shacabka wax iska qaban doonaan gacan bira maxaa ayaga wuxuu qabtay farmaajo ka hor oo nabad ku baaqaya oo inta tanaasulaya oo inta asagiya madaxweynaha la dhahayo kaalay maamul hebel igu imaaw oo yeelay weligay maarag waxaan leeyahay codkaygii cod dheer baan ku leeyahay Soomaaliya maanta laytul qadar baa ilaahay noo soo diray ilaahay maanta laytul qadar buu noo soo diray laytul qadarka laga faa'iideysta waxa day baa la yiri waxa day oo waxa ka hooseeya day war dadkii farka anaga noogu yaari jiray kaalaya la dhihi jiray anaga waxaan dhahaynaa giraw naga baxdalka Soomaaliya iskale calankaasa iskale waxaan leeyahay inta xumaanta Soomaali ka fikirayso oo ku xadaaqaysa hadalka qof weyn oo damiir leh ka wiswiso oo dhahaya anaga waxaanu ku noqonaynaa siday socota hadana wax laga bedelan 19 ku noqon mayna horay baan u soconaynaa nabadda maanta noo iftiinta ilaahow indhaha hana qaban farmaajo ka hor indhahayaga iftiinkooda waa yaraayeen maantana waxaanu war ka arkaynaa ilaa American wax ka arkaynaa xur baan nahay ilaahow adigaan ku baryaynaa boqor adiga ka weyn oo lagu baryo malaha ilaahow Soomaali siday salaax ugu jidha adaa garanaya ilaahow toobadayada meel wanaagsan rabbiyow nooga fur bismillaahir rahmaanir rahiim markeeda labaad waxaan leeyahay baraha bulshada dadka ka hadlaya oo xumata shilka walaalayaalow malaa'ig baa garbihiina saaran maalinta yoomal qiyaamo waa laga xisaabaya waxaan la dhahayaa maxaad ku hadlaysay maalintaad ifka joogtay oo awood lahayd walaalayaalow wanaaga faafiya war wanaaga ajar baa lagaaga qoraya war wanaaga hala faafiyo
keeni jiray waxaan islahaa mar hore Soomaalidan kala mowqifka ah oo midba calan meel ku siray midnimo intay gartaan midaaya inay helaan ma laga yaabaa midaas midlan baan yar ahaa ma yaan islahaa anigu mar hore waan fikiri jiray maankayga faafi jiray wax baan mooriyeen jiray waxaan islahaa mar hore dad masaakiinta iyo agoonta iyo maatada dayacan mid daryeela miyaa la heli ma yaan islahaa anigu waxaan islahaa mar hore dalkeena damaaciga ay falaaraha duran yihiin u dooda miyaa la heli ma yaan islahaa anigu laakiin markaa timid maxamadow dareemihii tagay mar hore mar qura soo xaadiray maamkeena soo dagay maqsuud baan wada nahay إفراح محمد علي وحنا كلا هالليا كان مدحوينها فرماتشان كسلام يا جارهان وحن كلان دقياش يا دبديلفكا أيان هلكا وحوجا شيء مدحوين فرماتش هنولادو سجع ربنا هربانو هاللي نبضانو هاللي نلالبانو هاللي اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم بري مالي عدا يو بهر جرملو دوبا بري مالي عدا يو بهر جرملو دوبا لباس مالشي فبها كورا لا كورا فرما تبورتيا غربي بابرا كدي بان ربنا مدحوينها النقع قلقلاسا نقا قليننا هذا الكيس حنها قادنا هداتين برلمان شرعي إذا كانت دورتين ما أنتنا معنا إن هذا الكلاكينتين معها ميان دنقانين تركين ميان صومالي نبض هذا الربين برلمان كان محان كل هذا والإلهي كعب صدى هداتين برلمان نكي الشرعي إذا كانت دورتين بتاعنا ما أنتنا أنا قاعد أوكي اللي قاعدة 10 سنة أقدر لها محمد عبد الله فرماجو يا فرماجو وحنت هذا يا فرماجو أنا يا أنت مسلمين أنا يا أنت ماتا نيك ماتا واحتراي وعرورته واحتراي وحاسسك واحتراي